halka aad ka dhagaysanayso waa Qoraxay Media. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee dhiigga Soomaalinimadu uusan ka dhamaanin, uusan ka dhiman dareenka wadaniyadu. Waxaan idinku salaamayaa salaan dareen wadaniyadeed xambaarsan. Waxaan meeshan ku duubayaa oo rabo inaan bulshada Soomaaliyeed u gudbiyo inteeda dhiigga Soomaalinimadu uu wali ku laaban yahay. gabay magaciisa la yiraahdo ay dharaarciyay gabaygani wuxuu quseeyaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu gabaygani ku soo beegmay xilli uu booqasho u tagay magaalada Jigjiga oo kamid ah dhulka Soomaaliyeed ee gumaysiga Abasiiniya oo muddada dheer haystay bulshooyinka Soomaaliyeedna in badan ay naf iyo maal u soo hurtay dadka Soomaaliyeedna muddo dheer u soo dhiman hayay marka qaybta labaad gabaygan dhaalayda qaybtiisa hore waxay dhageyso maqalkana wuxuu noqon hayaa ay dharaarciyay haddaba Soomaaliga dhabtoo baldhageyso ay dharaarciyay idageysa oo maqal waxaan dhimaanay sheega idageysa oo maqal waxaan dhimaanay sheega dhowr sano horteed bay ahayd dhaartiyaan furay dhalayda markan curinayen dhiibay magaceeda ma dhammaynin qaybaana dhiman waanigii dhahay ma dhammaynin qaybaana dhiman waanigii dhahay mar haddaan dhudii hore tirisho way dhaxdaana taalo oo weli dhibkan uu alifee dhaliyey muuqdo ma dhexgalaya meel kale anoontaa dhammaystirine dhiil buuxda weyon beriba qaar ka soo dhuuraane dhab u maqal dhegaystow tanina waa ay dharaarciyay dhabu maqal dhegaystow tanina waa ay dharaarciyay xasan sheekh inuu yahay dhimaadaadu dhimir liita iyo qofan dhannayn oo aqliga dhaawac kaga yaalo dhaqan lumis inuu yahay dulliyo weliba dhandhaana dhaqdhaqaaqyadiisii horey dhabuga muuqdeen dhaqdhaqaaqyadiisii horey dhabuga muuqdeen shakhsigay dhegaystow markaad dhuuxda hadalkayga dhaliilaan saariyo aniguusan dhibca u siiyey dheeraad barbaa ku waxaadan iba dhihi doonin adba waad ka dheexani hadeer dhibadu galay adba waad ka dheexani hadeer dhibadu galay isagoon si isu dhelitiran dharnabow soconin oo kala dhinayo waqii aan dhammays noqonin ogaadeen ya dhoofku ku tagay dheehu kaga duulye eegana mid kale oo dhinayd yaan dhambaalayaye wuxuu inuu dhimad yahay siyaan kaga dhadhiciyo dhegta furo waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne dhegta furo waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne mayd dhinto masiixiyo qabrina lagu dhowaynayo dhancadiyo hadday noqon lahay dinta lagu dhaato labadaba kuwii uga dhowaa dhigna ugu yiilay dhalashana ka xigay oo nidaam dhaqana raacaya ay dhinacya joogaan siyay dhihi lahaayeenba inta uu dhammaan uga hormaray oo u wada dhaafay waajib dhaba siduu gudan rabbina ugu dhowaanayo intuu dhabarka goday oo madaxa hoos u dhaadhiciyey waa wixii sujuudda oo la dhacay dhaar la fiirsaniye waajib dhab ah siduu gudan oo rabbina ugu dhowaanayo intuu dhabarka goday oo madaxa hoos u dhaadhiciyey waa wixii sujuudda oo la dhacay dhaar la daawaniye waa wixii sujuudda oo la dhacay dhaar la daawaniye markaasuuna meel kaga dhacay oo diintii dhaawacaye mid kalena dhegaystow siyaan kaga dhaadhiciyo dhegta furo haddaan ku dhibceeni oon dhambaalayaye madaxweynayaal toban dhannaa ma dhowaynayay
ومذيبا كرسيغا دارقبتو ودولكان يشي أيغون حلكي ديريغ مرمارين اون درقان دابانين اون دين تميلكا يدعين اون دقنا عيبينين وشرفتي قوذي دولكي يوتي دادكا ودوري داركوذونا النذيف ياي يورتي دافي باجيراي متكو داعينا مالاهينا ساقودي غضو قالي متكو داعينا مالاهينا ساقودي غضو قالي توكالنا دقيستو سيانكا غدادعيو لحظنكي حيركي لديغي اوندي منيني جوغا قد بلغو دحدري اولي بداد معول سيستي وكستبا هدو دعوينان دالان رقلو يلان وإلا مدقا جانيهين لوغو ديغي بوغا دولكا إيو حدوديو دادكنا دابو قسينايي وأدنا اللو دوجيي او دورا هاجيري دمان ويتحقليين كوي دافي هوراي رقا هوري وحو دين عماري وكودي عواي أساقا كودي رذيين ووضا دحقاضاي أساقا كودي رذيين ووضا دحقاضاي متكالنا الدقايستو ودان كود دحقالي سومالي ذا دمان تذيذا اون لكالا الدقين أذو ودبتا إلى ذهي دحل الديري ريسي weligeedna ay soo dhex tilgudubta dheeraatay dagaal dhiiggalays kaga qubo dhacaya mooyaane annabadii abidkood dhex marin dhaara lee heshiinin madaxdii hortii dhaaftay ee uu dhulkaani yeeshay dhammaantood inay xabashi tahay kama dhan sarrayne kulligoodna way isugu dhaceen dhilada horaae kulligoodna way isugu dhaceen dhilada Itoobiya way isugu dhacayaan kulligoodna way isugu dhaceen dhilada horaae hayeeshee isagu tamadhugan waa dhurwaa falan daldan oo xora dadkiisu xilkii uu wada dhiibtay sharaftii dhulkiyo tii dadkee dhabarka loo saaray war dhandhankan waalani inuu dhowra garan waaye dhandhankan waalani inuu dhowra garan waaye mid kalena dhegaysto haddaan ku dhibciinayaaye ninku inuu dhamaas yahay si aan kaaga dhaadhiciyo dhegta furo waxaan ku dhexgali falla dhumuc weyne dhanaan iyo dhasheg waama iyo dhoobka xamar weyne ma soo kala dhawaysta midii aan dharaartagaba waxaan oogu dhelmani inay tahay dhulkaygiiye asagaa ka qawan oo dhanka aan dharnow qabine wax dhig cadiifiye qalbiga uga dhex buuxaaye weli dhabarka waxa ugu raran dhil qabyaalada inii uu dhiga yahay si aan kaga dhaadhiciyo idhegayso waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne wareer dhama u liita ritigii uu u diray dhanka ay ka dhur sugayeen biyaha inuu u soo dhelmo maruu soo dhow yahay oo u jiro mala dhawaqaban dhanka oo la seexday intuu dhilihii jabiyey iska daa wax weyn lagu dhoqo dhari bisleeyay ama uu dhallano mana qarki dunyada asagoon dhudhuun wadin biyood soo dhexgalay reerka xasan sheekh sidaasou dhaceen dhaqamadiisuye xasan sheekh sidaasou dhaceen dhaqamadiisuye inii uu dhiga yahay waxaan kaga dhaadhicini dhulka uu mataleesu yahay dhoolkii madaxweyne yay dhinac ka soo geli jigjiga oy dhexda u taale haddii uu ku dheelmaday habeen amuu dharar booqday ha noqdeen dhabcaal cadow dhistay oo la isku dheerayne maamulku ugu dhex tegay ayada ee dharkou xidhayay shirkay ugu dhigeen maalintuu ka dhex gudbaynayay shirkay ugu dhigeen maalintuu ka dhex gudbaynayay
walla wada dhagaystay sidii uu warkow dhigayay shakhsi dhiigga soomaalinimo uu dhab ugu yaallo iyo ruuxiskiisu dhanyoon dhiman dareenkiisu hadal aan inuu dhihi karaba cidi ka dhowraynin dhammaanteedna soomaali weyn dhaawac culus tartay oo dhumiyay taariikhdii hoos dhibay baa jiray sheekada qofkii dhuwan karen eraygu dhaafaynin ayadana dhagaystow si aan oga dhaadhiciyo dhagayso haddan ku dhibcin ontaana ku dhigiye shirkay ugu dhigeen maalintuu ka dhex qudbaynayay dhammaan erayadiisii markaan dhuuxnay nuuxurkoodii dhaantada kuwii ugu tumee kuna dhowaynayay uma dhicin dhul soomaaliyeed inay dhex joogaane dhammaan erayadii uu dhihiyo hadalladu dhiibay uma dhicin dhul soomaaliyeed inay dhex joogaane dham xabashi leedahay sidii uu dhaxsiin u gaadhay ama uu ku dheelmaday maqale iyo dhirin dhirkii goondhar dhammaan hadalladiisii sidaayay u dhaacayeene jigjigana dhul soomaaliyeed ma ahayuu dhahoo yidhiye waa markuuna sharaftii dhannayd dhibay wadarteede markaasuuna sharaftii dhannayd dhibay wadarteede tukalana dhegaystow siyaan kaga dhaadhiciyo iyadana haddan ku dhexgeli oon dhambaalayaaye soomaalidu dhul ay leedahoo dhinaca hiraana dhallinyarada jawxo ayaan ku dhex lugaynaysa oo inay u dhaafaan rabay dhacarkii ciiddooda wiilashaa dhulkoodii maqnaa dhiladu ka haysay dhabbahay marayaan shacbigay tilay dharabtiisu inii ay dhankooda ayaga dhibi ka soo gaadhi dhimarkaba ku haynoo midda aan iska dhoroofin dhanka bariga beshi ka til dhoobka baalad weyne dhaqan xumadii ay kula kacday kuna dhaqan xumadii ay kula kacday kuna dhibaataysay wiilashaa dhulkoodii maqnaa dhiladu haysay ee aan dhib soomaaliyeed doombirkow sidanin dhankii ay u jeedeen intuu barugu si dhuuntay dhabagalidi jidgooyaa intii loogu dhigay ciidan dhabarkana ka weeraray barkale oo la dhaabaneeyey dhinacyada intay kala mareen dhamacda baruuda kuwii kula dhaqaaqayee dagaal dhuuca kaga yeelay kuwii kula dhaqaaqayee dagaal dhuuca kaga yeelay dhiiggayaga itoobiya ayagoo ugu dhowaanaya farjanno kuwii nagu dhex dilay ee dhowrtanna cunsiiyey ciidankii dhannaayee axmar dhab ugu duulaayay ayagoo dhammaan wada qabtalay oon midnaba dhaafin midkan gumac ku dhicin ee baxsaday ee dhan uga fiigay asagoo dham oon dartii gabay dhaqaaqiiba inta ay dhabsiiyeen tigree dib ugu soo dhiibay maydkii dhintiya kii kale dhaawaca ahaana labadaba dhaqaaliyo axmar dheef yar kaaga qaatay dhagarta xawaadluu galiyo dhibabka xooggaale isagoo ku dhacdani hayuu dhool lahaa caddayni itoobiya inuu dhaho ana dhibay amarkeeda dhanka wuxuu u aaday ahayd waana qowl dhabaahe tukalana dhegaysto waddan ku dhambaalayaaye fidaayiga dhulkiisa uu halgami ee u dhiididaya ee inuu xaqiisa la dhacay soo dhacsada dooni dhibaatada xornimo loo mariyo dhamacda loo jiiro inta uu cadceedaysu dhigi iyo dhooci iyo suudi ama uu dhul oo mana ah iyo oo masdhex qaadayo wixii dhas iyo boodh ugu duldhaca dhicinta ciiddiisa xasan cay hadduu ooga dhigo kuna dhaleeceeyey halgamaha dhankiisay ka tahay dheeman iyo luul
xasan dhuxul hadduu cay ka dhigay taa kuna dhaleeceeyey halgamaha dhankiisay ka tahay dheman iyo luule tu kalana dhegaysto waddaan ku dhambaalayaye tigree dhaqan yaqaanooga dhagan weylkiisa intuu soo dhaqaaq yidhi aduu aan dhanna u jeedsan isdharriijindaayiyo inuu dhagaadaygaye dhadhab intuu u soo kacay sidii ruux yar dhaaxamaysan dhankay ooga yeedheen intii uu dhaqsa u waaday dhul soomaalileedoo axmaar aan u dhaalan haysto oo uu tigree ugu dhex tegay gobol dhulkiisii ah markuu ku dhex martiyayo jigjiga waa dhaam uu leeyahay ee dhuubka hoos dhigan hayee kagana dhowrtaysan dhaqanka markuu muujiyu dhibay shaaraftiye inuu dhiciyayaa waajibo uu u dhiidhiyae haddaan dhirif ka hayn oo asagu dhigay xusuusteeda annagay dhulkanagii toho dhiigganow huriye aflagaada loo dhiibay iyo hadal dhimaal weyn leh intuu nagula soo dhaco inuu dhabar ka noo saaro wixii kuba dharbaxaana garan eyayga dhaadhiciya tu kalena dhegaysto waddaan ku dhibcinayaaye dhiqile iyo xabashiyay tagfidu dhoorka uga buuxdo dharfood iyo habeedna leh asagoo taagan dhinaciisa dharfoodkii ku yaalkaa intuu dhaayahaa u diiday oo NLF dharkeedii iyo timahay injiri uga dhex buuxdaada waa war cadow u dhiibo ileen uu dheh yidhi gaale hadduu dhaaq la soo yidhi intuu dhowrsan kaari waayey oo uu dhimaal aana qaban dhabar ka noo saaray wax u dhigan wuxuu nagu dhehee nagu dhaleeceeyey aniguna inaan eegadhahooyaan dharkow xidhaane wuxuu kala dhexiyey ee jigjiga kaga dhawaaqayay dheef iyo dhimaal male midnaba dhararaqdiisuye dameer dhuusay weyo kaliyo ay dharaarciyey ee dameer dhuusay weyo kaliyo ay dharaarciyey